هذا أنا قبل يروح بكريجي بكرة بكريجي بكرة قبل هدي لقولي أو خجل هدي الشرو يهدنا الشري وكان في عيه حينها ين ما كحركة لقى قرر نعير عنه هاي اللي هذا قرط حركة لقى قرر وانا كيريا شق عدسنا يا داوده intaana warbixinta ama waraysiga oo dhameystiran aan u guda galin in muuqaalkan aad share gareedo oo asxaabtaada aad la wadaagto si ay u arkaan qofkii Ilaahay cimri dheer uu siiyo oo markaas isagu ay dadku ay ugu wana qaataan maanta waxaan la joogaa daawade Axmed Maxamed Dhoore oo ku magac dheer agdegi waxa uu markaas isagu jiraa 118 sano waana ninka ugu da'da weyn deegaankan waxa uu sheegay Axmed in xitaa da'da uu jira xitaa maanta uu awoodo in gabar bikra ah oo markaas isagu bikrin jabin karo oo uu guursan karo caafimaad Ilaahay uu siiyay aawadeed ninkan idin muuqda hadda waa xaasle waxaana uu degan yahay magaalada Gurceel oo waa nin caan ka ah magaalada Gurceel iyo sidoo kale Dhuusamareeb isla markaana aad looga garanayo waxa uu markaas isagu ka soo qayb qaatay berisamaadkii dawladihii dakhliga ahaa ee soo maray wadanka ama gumaystaha noqdaan ama wadanka u soo taliyaan Axmed oo isagu markaas loogu yeero agdege oo ahaan Ilaahay gaarsiiyay 110 sano haatanna aqligiisa uu markaas isagu joogo waxna aan iska bedelin sida uu ii sheegay waxa uu markaas isagu ka sheekeeyay waaya aragnimadiisa iyo taariikhda oo isagu markaas uu soo maray Axmed waxaan weydiiyay bal inuu masaajidka aado oo uu meelaha markaas isagu tagtago maadaama aad u badan Ilaahay uu gaarsiiyay 118 sano ruuxadeedu waad qiyaasi kareysaan ama arki kareysaan in 118 sano qof gaaray uu san yarayn waa hal qarni iyo sidoo kaleeto jajab Axmed wuxuu ii sheegay in ilmihiisa hadda ay iyagu markaas gaarayaan 24 ayna ugu yar yahay 4 sano jir 3 sano jir sida uu ii sheegay soo sax ma waxa uu kaloo ii sheegay Axmed waxyaabo badan oo markaas dabcan waaya aragnimadiisa uu soo maray muuqaalka laygaree oo sheergaree oo la wadaag asxaabtaada si ay u arkaan Ilaahay cimriga uu siiyay adeerkay Axmed Agdege oo caan ka ah deegaanadan oo xitaa sheegay magaalooyin markaan haatan waaweyn in markaas isagoo ciyaal ah oo dhalinyaro uu joogi jiray Axmed waxa uu ii sheegay inuu ku dhashay magaalada la yiraahdo Karin Dagaari oo gaalkacyo u dhow oo markaas deegaanada Galmudug kamid ah waxaana Axmed uu ka sheekeeyay taariikhdii uu soo maray waxaan ka codsanayaa daawade intaana warbixinta ama waraysiga oo dhameystiran aan u guda galin in muuqaalkan aad share gareedo oo asxaabtaada aad la wadaagto si ay u arkaan qofkii Ilaahay cimri dheer uu siiyo oo markaas isagu ay dadku ay ugu wana qaataan maadaama Axmed uu sheegay inuu ahaa nin military ah oo isagoo ilmo ah marka militarinimo inta galay lagu soo ceyrin jiray dabeedna aalamiitada iyo waxyaabaha markaas uu soo maray oo haatan waxa weeye uu iska dhuranayo Maxamed Dhoore Faarax ismarkii la yiraahdo agdega ku magac dheer agdego ma qasana jitaa 118 jooga 118 sano joogtaa waxa weeye horta sideeda Axmed Maxamed Dhoore wuxuu idin cadeynayaa adduunyadu saddex meelood oo qaybood ah inta soo maray saddex isbedel ku dhacay saddex isbedel ku dhacay bedel دولة استعمار أو صومالي إيطالياني اسمه عن هيسي بدلنا إنجليز استعمار نيسي لبده بدلنا صومالي ودولة نبن قارتي وحان صومرني اسم غشا waxaan galnay Soomaaliya isbaqal aan lahayn waxaan ku weydiiyay isbaqal ay leedahay aan arag oo aan israacayn oo is ogolayn oo qiimeeyn aan galnay waxaan ku weydiiyay sanadkaas gal haddeertaan waxaad noo sheegtay 118 sano inaad jirto intaas oo waaya aragnimaana inaad leedahay xaas miyaad leedahay ya xaas miyaad leedahay islaantaas aniga igu dhaxday saddex waa dhigalaadahay lugna waa laadahay laba soo maaha saddex ilmaana waa leedahay oo haddeer dhashay waxa weeye dhigayso waa 7 jir
iyo 6 jir iyo 4 jir waxa ingiriisku soo galay oo 41 waxaan ahay farba waxaan dhiga jiray fartaan Soomaaliga oo la yiraahdo Cismaaniya dhiga jiray anigu aan dhalay wixii dhintay haddii lagu daro waa 20 iyo 4 gabar yar waa bakri jabi karaa gabar yar haddii lagu dhiso laakiin say ku bakri jabi kartaa ilaa da'daas jirtay ما waxa weeye waxa weeye sida anigu sababta sida waxa uu sheegaa aw geel hadii la rabo iyo haddana rabin waa kala fiicay shatiga sharka yaqaan oo la soo rastay oo la jafiyay oo hoggaanka inta loo dhigo asagoo laga birin alaabta la saarayo hadhow loo farjawaayo saasaa la leeyahay soo kaca ma cuno hilibka ma cuno ma gowsaan lagu arag afar lagu arag hal iligan lagu arag hal ilig waxay ga wada rido iskaambiyadii la siiyo ay hayeen loo samayn jiray ilkaanta loo samayn jiray haddaan helo waa fiicnaa laakiin iskaambiyadu ilkaha ma da'da miyaa da'daan dhameeday waxaan ku weydiiyey hadda caano keliya cabtaa caano keliya cabaa cuntada dalka ma cunti miyaa ma cuni karo ma calali kartid ma calali karo laakiin mushaaridoo kale mushaarida haa waa ka badan waxay dhahayeen nimanka xaarka laga guro dhinac yar aan u hayo liyaada golcad xaarka laga gura waana ka yarya 5 sano uga yarya haye